caasimada Djibouti ayaa waxaa laga daafuray shilimo ambasinimaaga ugu weyn dalka waxaana laga hirgeliyay Bowadi Mall oo ku taal wadada Venice. Shilimadan ayaa waxaa laga fiirsan doonaa aflaanta iyo riwaayadaha taas oo ka turjumaysa rabitaanka dhalinyarada inay helaan goobo aflaanta laga fiirsado. Shilimadan ayaa waxa ay tahay goob ka kooban guud ahaan 6 xool oo waaweyn sida maamulka warbaahinta uu sheegeen. Wasiirka arrimaha Islaamka dhaqanka iyo awqaafta Djibouti Muumin Xasan Bare ayaa dahfuray howlaha lagu dhaqaajinayo shilimahan. agaasimaha macadka fanka Djibouti Nabiha Muumin Waabari oo warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay tiri sidan: ouverture des nouvelles salles de cinéma au Bowadi Mall. maanta waxaanu joognaa furitaanka shalemada ugu weyn dalka muddo dheer kadib oo dalku uu bilaa shalemaha sida silimo Odeon Silimo Bari markii meesha ay ka baxeen. tan ayaa waxa ay ka turjumaysaa in dhalinyaradu ay helaan meel ay ka fiirsadaan aflaanta. fanaanka weyn ee Cabdinuur Alaale iyo dadkii kale ka soo qayb galay oo aan wareysanay ayaa waxa ay ka warameen dareenkooda ka soo qayb galka xafladda furitaanka shalemada. moolkan aan dhex joogno waxa laga furay 6 maqsin oo sinimaayo ah. yacni taariikhday gashay waxa furay wasiirka yagii dhaqanka oo maanta halkan si la yaab leh u furay dhammaan ummaddu isugu timiday. waxaanan ugu hambalyeynaya ummadda reer Djibouti meesha ay ku nasan lahayd inay meeshani tahay, hadday qurux tahay iyo hadday dadka soo dhaweynta tahay meesha ka shaqeeya shaqaalaheeda dhammaan intii fikirtay inay moolkan dhisto ku fikirtayna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa sababtoo ah caasimadda adduunkana la simay waa farxad noo soo korodhay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay habsudfaba ha ahaato. waxaan rajaynayaa meeshan la furay ee rag iyo dumarba ku soo daaleen from ministerka ilaa iyo qolada tigirka goynaysayba in ay miradhalin yeelato oo dadkeenu ay soo saaraan filimo lagu daawado meeshan oo dawladdii weydii dhistay marka waxay u dhigan tahay la dhis ee kaalayo isticmaal nin iyo gabarba iyo awoodeed iyo tartankiiyo bilaabmay maanta iyo ugu horeyn doona. aadna waan idinku mahadcelinaya dhammaan. boqolaal qof oo ka soo qayb galay furitaanka shalemadan ayaa aad ugu bogay filmaan goobtaasi lagu soo bandhigay.